بسم الله الرحمن الرحيم كلنتي وعن داوديال kusoo dhawaada wararkii ugu dambeeyay gudaha Soomaalida iyo caalamka qodobada daawada untaana waxa qayb ka amarkii madaxweyne Cabdiraxmaan Cirro ee galbeedka Soomaaliland oo durba la fuliyay iyo sidoo kale ciidamada ka hortaga rabshadaha iyo la dagaalanka argagixisada ee loo yaqaan RRU-da Soomaaliland oo markii ugu horeysay howlgal ka sameeyay gudaha magaalada Saylac ee xarunta gobolka Salal waxaan kula wadaagi doonaa yaa la bartilmaameedsaday maxaase ka jira in la qabtay wakiilo dowladda federaalka Soomaaliya iyo Djibouti u joogay deegaano ka tirsan galbeedka Soomaaliland waxaan kula wadaagi doonaa xogta rasmiga ah ee arrimahaas ku saabsan iyo sidoo kale wasiirka wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliland wasiirka cayaaraha iyo saraakiil kale oo gaaray qaybo ka tirsan galbeedka Soomaaliland si gaar ah magaalada Saylac halkaasina kulamo kala duwan ayay ka wadaan sidoo kale madaxweyne Cabdiraxmaan Cirro amarkiisa ayaa qayb kale oo kamid ah la fuliyay waxaana magaalada Saylac la geeyay ciidamo si gaar ah u tababaran kuwaas oo ka tirsan commandoska Soomaaliland madaxweyne Cabdiraxmaan Cirro sidoo kale waxa uu amar ku bixiyay in gabiyahanba xadka la xiro xilli dowladda Djibouti safiirkeeda oo ku sugan magaalada Saylac isaguna uu doonayo in ay socodka labada dhinac la furo laakiin Soomaaliland arintaasi khatar ay u aragtaa waxaan kula wadaagi doonaa xogihii ugu dambeeyay ee arrimahaas ku saabsan qodobada kale xasaasiga ah daawada doontaan waxaa qayb ka ah wasiirka wasaaradda gaashaandhigga ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Axmed Macalin Fiqi iyo taliyaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo ku sugan waddanka Masar ayaa la filayaa saacadaha soo aadan in ay tababar u soo xiraan cutubyo ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed kuwaasi oo tababar ku qaadanayay gudaha waddanka Masar haddaba waxaan kula wadaagi doonaa maxay yihiin ciidamadan tirada ay la eg yihiin iyo xogtan oo inta badan la qariyay laakiin waxaa la ogaaday kadib markii baaritaano la sameeyay madaxdana ay u safreen gudaha waddanka Masar ayaa tababaraysa ciidamadii ugu tirada badnaa kuwaasi oo la filayo dhawaan inay soo gaaraan gudaha Soomaaliya waxaan kula wadaagi doonaa xogta rasmiga ah ee arrimahaas ku saabsan qodobada kale ee Soomaalida ka baxsan ee daawada doontaan waxaa qayb ka ah Turkiga iyo sidoo kale waddanka Iran ayaa ka wada hadlaya sidii looga hortagi lahaa isballaarinta Israel ee bariga dhexe waxaan kula wadaagi doonaa kulamada ka socda magaalada Tehran iyo sidoo kale wasiirka arrimaha dibadda Turkiga Hakan Fidan oo gaaray caasimadda Iran halkaas inuu kulamo kula leh madaxda ugu sarreysay ee waddankaasi kulamadaas iyo waxyaabaha ka soo bixi kara iyo khatarta Israel oo labadan waddan ay iska kaashanayaan ayaan kula wadaagi doonaa qodobadaas iyo wixii kale nagu soo kordhay ayaa daawad doontaan balse marka hore soo dhawaada laagsar muuqaalka la wadaag saaxiibadaada sidoo kale qayb ka noqo saaxiibada ku xiran waxaan ku soconaa wadadii aan ku gaari lahayn 30,000 oo subscribe kaliya safarkeena adiga ayaa ka dhiman ee suulka sar oo subscribe inoo sar channelka mahadsanidin waa hagaaga inuu ku bilowno madaxweyne Cabdiraxmaan Cirro dhawaan waxa uu bixiyay amarka madambeysa kaas oo gabiyahanba lagu xirayo xadka ay wadaagaan gobolada Salal iyo Djibouti ama xadka ay wadaagaan deegaanada galbeedka Soomaaliland iyo waddanka Djibouti si loola socdo dhaqdhaqaaqyada sidoo kale markii ugu horeysay ciidamada loo yaqaan RRU-da ee la dagaalanka argagixisada iyo sidoo kale kortagida rabshadaha ayaa la geeyay magaalada Saylac ee xarunta gobolka Salal waxaana saacadihii la soo dhaafay la xaqiijiyay in howlgallo xooggan ay ka dhaceen gudaha magaalada Saylac iyo guud ahaanba gobolka Salal iyadoo la bartilmaameedsaday shakhsiyaad ay ka warqabeen sirdoonka Soomaaliland iyo laamaha amniga howlgalladan ka dhacay gobolka Salal si gaar ah magaalada Saylac waxay imaanayaan xilli wali la isku haysto hirgelinta xeerka iyo buugga ciise oo la doonayo in laga hirgeliyo deegaano ka tirsan galbeedka Soomaaliland laakiin arrintan waxaa si weyn u diidan Soomaaliland oo fahamsan in dhagar iyo khiyaano ay ku jirto si lamid ah waxa diidan beesha Samaroon oo iyaduna arrintan u aragta mid la doonayo in lagu kala qaybiyo Soomaaliland waxaana gabiyahanba u muuqda inay fashilmeen qorshihii ay diyaariyeen Djibouti Soomaaliya iyo dalal kale kuwaasi oo doonaya in galbeedka Soomaaliland laga hirgeliyo jabhad la yiraahdo Awdal State ugu dambeynna halkaasi laga dhiso maamul la magac baxay Awdal State oo ay ku midaysan yihiin beelaha Ciise iyo Samaroon laakiin wixii ay doonayeen Djibouti iyo Soomaaliya sidii ay doonayeen uma dhicin ayaa la leeyahay oo beesha Samaroon oo la filayay in jabhadda Awdal State ay taageerto beesha Ciise iyo buugga xeerka la hirgeliyana ay ku faylaan ayaa diiday oo dhinaca Soomaaliland ayay la safteen arrintan xaaladda ay adkeysay Djiboutina dhowr jeer ayay iska daba wareegtay ugu dambeyn sidoo kale magaalada Saylac waxaa soo gaaray Cukusi oo ah safiirka Soomaaliland u fadhiya magaalada ama safiirka waddanka Djibouti u fadhiya magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland safiirka ayaa waday waan xooggan laakiin ilaa ay haatan waxay u muuqataa in gabiyahanba ay arrintan waxba ka soo naasacadaanin sidoo kale saacadihii la soo dhaafay marka laga tago howlgallada ka dhacay gudaha gobolka Salal si gaar ah magaalada Saylac ee caasimadda ah
waxaa jira in somalilan halkaasi ay geysay ciidamo badan oo ka tirsan kuwa kumaandooska sida gaarka u tababaran kuwaasi oo la xaqiijiyey in halkaasi u tageen sugidda amniga iyo in gebi ahaanba la xiro xadka ay wadaagaan galbeedka somalilan iyo jabuuti si gebi ahaanba loo yareeyo dhaqdhaqaaqyada safiirka jabuuti shalayto marka uu gaaray magaalada saylac waxa uu durbo kulamo kala duwan la qaatay odayaasha dhaqanka beelaha ciise ee ku sugan gudaha magaaladaasi iyo sidoo kale mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka Salal iyadoo uu kala hadlay arrimo ku saabsan sidii isu socodka iyo ganacsiga faraha looga qaadi lahaa laakiin somalilan durbo amar ayay soo saartay oo waxaa la xaqiijiyey in saacadihii lasoo dhaafay gebi ahaanba la xiray xadka ay wadaagaan Salal iyo jabuuti tan oo ka dhigan in la doonayo in la xakameeyo dhaqdhaqaaqyada waqti xaadirkan sii kordhaya ee jabuuti ay ka wado gudaha magaalada Saylac iyo guud ahaanba gobolka Salal arrimaha la yaab kale waxay tahay in ciidamada RRU-da loo yaqaano ee somalilan kuwaasi oo ciidamo si gaar u tababaran kana tirsan booliiska ay saacadihii lasoo dhaafay howlgallo kala duwan ka sameeyeen galbeedka somalilan si gaara magaalada Saylac iyo deegaano kale oo ka tirsan gobolka Salal oo xadka ku yaala waxaana la xaqiijiyey in la qabtay ku dhawaad 27 qofood kuwaasi oo isugu jira ayaa la yiri basaasin u shaqeynaya jabuuti iyo sidoo kale Soomaaliya dadkan ayaa waxay isugu jiraan dhalinyaro haween iyo odayaal dhaqan waxaana la xaqiijiyey inay gacan saar la lahaayeen dowladda waddanka jabuuti iyo dowladda federaalka Soomaaliya sidoo kalena ay qayb ka ahayeen dadka kicinaya doonayana in fadqalala iyo dhibaato ay ka abuuraan gudaha deegaano ka tirsan galbeedka somalilan wasiirka wasaaradda gaashaandhigga ee somalilan iyo sidoo kale wasiirka amniga gudaha iyo wasiirka cayaaraha oo iyaguna ku sugan gudaha gobolka Salal si gaara magaalada Saylac ayaa si cad waxay u sheegeen in loo baahan yahay ama odayaashu waxay la wadaageen in loo baahan yahay in loo hoggaansamo amarka somalilan ciddii ka hor timaadana gebi ahaanba tallaabo sharciya laga qaadi doono dadkan laga soo qabqabtay gudaha gobolka Salal ayaana la xaqiijiyey in loo soo qaaday xabsiga Mandheere la yiraahdo ee magaalada Hargeysa ku yaala waxaana la sheegay in durba hay-adaha ku shaqada leh ama ku shaqada leh ay bilaabeen in baaritaano kala duwan ay ku sameeyaan safiirka jabuuti waliba uu ku sugan yahay gudaha magaalada Saylac ninka lagu magacaabo Cukuse ilaa iyo haatanna waxaa la leeyahay kulamada uu la leeyahay wasiirada somalilan ee galbeedka matalaya wax natiijo ah lagama gaarin madaxweyne cabdiraxmaan cirro inkastoo isagii ismaaciil cumar geele khadka taleefanka ay ku wada hadleen laguna ballamay in xaaladda la dejiyo haddana jabuuti waxay doonaysaa ayaa leeyahay in somalilan waxyaabo fara badan ay hoosgeliso arrintanna waxaa si weyn uga feejigan dowladda somalilan oo fahamsan dhagarta iyo khiyaanada jabuuti ay ka wado deegaano ka tirsan galbeedka somalilan ismaaciil cumar geele waa uu ku qasban yahay ayaa la leeyahay in fadqalala iyo qalalaas uu ka abuuro gudaha somalilan si gaara deegaanada galbeedka maadaama dowladda imaaraadka carabta ay doonayso in mashaariic kala duwan ay ka fuliso gudaha deegaano ka tirsan galbeedka somalilan oo ay ka mid tahay magaalada Saylac halkaas ayaana la doonayaa in dekad laga dhiso waxaana arrintaasi ay leb ku tahay jabuuti iyo madaxweynahooda sababtoo haddii Saylac iyo sidoo kale galbeedka somalilan la hormariyo waxay si toos isugu xirmayaan Ethiopia oo dekadaasi wax kala soo degaysa arrintaasna dhibaato ayay ku tahay Ismaaciil Jabuuti oo waxa uu doonayaa in gebi ahaanba arrimahaas uu ka hortago si looga hortagana beeshiisa ciise ayuu adeegsanayaa laakiin odayaasha dhaqanka ee reer somalilan ee beesha dhexe isaaq si cad ayay arrintaasi kaga soo horjeesteen waxayna yidhaahdeen beesha ciise kaalinta saddexaad xitaa kama ahan marka la joogo somalilan oo waxaa ka horeeya beelaha isaaq iyo sidoo kale beesha lagu magacaabo samaroon kuwaasi oo loo tiriyo in ay yihiin milkiilayaasha somalilan beesha ciisena waxaa loogu baaqay xeerka ciise inuusan ahayn kutaab samada ka soo degay loona baahan yahay in amniga ay ilaaliyaan iyo kala dambeynta ka jirta somalilan horena looma arki jirin ayaa la yidhi beesha ciise oo kacdoon samaynaysa waxaana markii ugu horreysay arrintan la fahamsan yahay in la doonayo in ay tahay mid lagu kiciyo guud ahaanba deegaanada somalilan ee galbeedka sidoo kalena gebi ahaanba looga farmaroojiyo somalilan laakiin somalilan arrintaasi way fahamsan tahay oo waa is adkaysay sidoo kale ciidamo awood badan ayaa loo soo diray galbeedka oo marka hore ma aysan joogin ciidamo military oo sidaas u tababaran somalilan dhagar kama aysan filaynin dhinacaasi laakiin hadda dabayshii ka dhacday bariga somalilan mid la mid ayaa waxaa la leeyahay waxay ka soo socotaa deegaanada galbeedka waxaana la doonayaa in gebi ahaanba laga hortago qodobkan iyo waxyaabaha kusoo kordhay iyo xaaladda Saylac iyo galbeedka somalilan halkan ayaan kula taaganahay sidoo kale waxaan idin xusuusinayaa janalka inaad subscribe inoo saartaan subscribe-ka aad ay u liidataa maalmihii ugu dambeeyey si khaas ayaan idinkaga codsanayaa bal suulka saara halkaasi
dhinaca kalena waddanka Masar waxaa shalaytu gaaray taliyaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed General Odawa Yuusuf Raage iyo wasiirka wasaaradda gaashaandhigga Axmed Macalin Fiqi magaalada Qaahira ayaana si weyn loogu soo dhaweeyay qorshayaal kala duwan ayaa jira oo halkaas ay u tageen xogay ugu dambeeyay waxay tilmaamayaan in ay jiraan ciidamo gaaraya ku dhawaad 2,000 oo askari kuwaasi oo tababar u jooga gudaha waddanka Masar waxaana ciidamadan la leeyahay waxa masaarida ay u tababaraysay qaybaha kala duwan ee ciidamada ama xirfadaha kala duwan ee ciidamada sida badda ciidanka dhulka iyo sidoo kale ciidanka cirka waxaana ciidamadan ay sanadadii ugu dambeeyay ku sugnaayeen ayaa la yiri gudaha waddanka Masar taliya Odawa Yuusuf Raage oo taliyaha guud ee ciidamada xoogga dalka iyo wasiirka wasaaradda gaashaandhigga ayaana la filayaa in ciidamadan ay tababarka u soo xiraan maalmaha soo aadan laakiin koor waxay la kulmi doonaan madaxda waddankaasi uu qayb ka yahay wasiirka gaashaandhigga taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida ee waddanka Masar si lamida dhawaan waxaa la filayaa mas'uuliyiin masaariya inay waddanka soo gaaraan uu qayb ka yahay madaxweynaha waddanka Masar Cabdifataax Al-Siisi Masar iyo Soomaaliya xiriirkooda ma wanaagsaneen bilay ugu dambeeyay kadib markii madaxweyne Xasan Culusow uu la saftay dhinaca Itoobiya Abiy Ahmed maadaama masaarida iyo Itoobiya ay isku haysteen arrimo ku saabsan biyo xireenka webiga Niilka oo muran ba'an uu ka taagnaa mashruucii Abay kolkii la xarig jarayna madaxweyne Xasan isagoo qoslay ayuu ka soo muuqday arrintaas oo si weyn kaga carootay Masar iyo guud ahaanba shacabkooda iyagoo xitaa baraha bulshada ku falanqeeyay laakiin masaaridu waxba kama tagaan wali waxay Soomaaliya u arkaan inay tahay buucad istiraatiiji sidoo kale ay kala dagaalami karaan Itoobiya ama joogitaanka Masar ee Soomaaliya markasta Itoobiya ay dhibaato u dareemayso waana waxa keenaya in masaarida daneeda ay eegtaan sidoo kalena mar waliba ay doonayaan inay wanaajiyaan xiriirka ay la leeyihiin dowladda jilicsan ee haddaba ka jirta Soomaaliya sidoo kale waxaa la filayaa in madaxdan ay ka wada hadlaan sidii loo soo dedejin lahaa ciidamada qaybta ka howlgalka nabad ku soo dabaalida Soomaaliya ee AUSOM ee masaarida ka socday kuwaasi oo mar horeba la diyaariyay loona tababaray sidii ay kaga howlgali lahaayeen gudaha dalka iyagoo caawinaya qaybaha kala duwan ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed masaarida ayaa sidoo kale dhawaan hub duuga waxay soo siiyeen taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed madaafiicdooda ayaana lagu arkay furimaha hore ee dagaalka inkastoo uu ahaa hub aan tayo badan lahayn oo barisamaadkii la isticmaali jiray haddana Soomaaliya marka la joogo argagixisada ayaa si weyn loogula dagaalay hubkan oo gobolka Shabeellaha Hoose ayuu si weyn uga soo muuqday iyadoo oo ciidamadu ay isticmaalayaan hubka masaarida si gaar ah madaafiicda nuuca la jiido tani waxay ka dhigan tahay ayaa leeyahay in Masar ay si weyn u danaynayso inay soo xoojiso xiriirka ay la leedahay dowladda federaalka Soomaaliya xiriirka masaarida iyo Soomaaliduna waa kuwa soo jireen oo qarniyo soo tixnaa ganacsi iyo waxyaabo kale ayuu ku soo bilowday hadda labada dowladood xiriirkooda waa mid aad u dhow oo wada shaqayntooda 100% waa mid la isku haleyn karo inkastoo xukunka Soomaaliya uu yahay mid isbedbedela 4 sanaba mar siyaasad cusub iyo madaxweyne cusub ayayna Soomaalidu mar waliba u taagan tahay halka madaxda caalamka ay leeyihiin dowlad sal adag leh madax inta badan ay isbedbedelin taasoo ku tusinaysa in Soomaalida ay yihiin kuwa aan u diyaarsaneen dowladnimada sidoo kalena wali ajnabiga ay gacanta kula jiraan qodobkaas intaas ayaan kaga gudbayaa ugu dambeyn qodobada caalamiga aynu eegaynaa wasiirka arrimaha dibadda waddanka Turkiga Hakan Fidan ayaa booqasho ku tagay magaalada Tehran ee caasimadda waddanka Iran isagoo halkaas kula kulmay madaxweynaha waddanka Iran gudoomiyaha baarlamaanka iyo wasiirka arrimaha dibadda iyo xitaa la taliyaha amniga qaranka kulankan oo ah mid folkafola ayaa yimid iyadoo oo ay si kulaanaysa xaaladda bariga dhexe waxaana dhinacyadan ay ka wada hadlayaan sidii looga hortagi lahaa saameynta Israa'iil ee bariga dhexe iyo isballaarinta ay doonayso inay isku ballaariso guud ahaanba dalalka islaamka iyo kuwa carabta oo ay qayb ka yihiin Masar min Iran Turkiga min boqortooyada Sacuudi Carabiya ilaa Qatar iyo Imaaraadka Carabta inkastoo Iran iyo Turkiga xiriirkooda uu yahay hadda mid wanaagsan haddana dagaalkii Iran iyo sidoo kale Turkiga waqtigii uu socday ama dagaalkii Iran iyo Israa'iil waqtigii uu socday Turkidu waxay si weyn u garab istaageen dowladda waddanka Iran af iyo idin ayuuna madaxweynaha Turkiga ku sheegay in Israa'iil iyo duulaan gardara ay ku qaaday gudaha waddanka Iran waxaana leeyahay haatan wixii ka dambeeya waxaa la xoojin doonaa xiriirka labada waddan Hakan Fidan ayaa warbaahinta Anadolu ee waddanka Turkiga ka soo baxda u sheegay in shir jireed ay wada qaban doonaan isaga iyo sidoo kale wasiirka arrimaha dibadda ee waddanka Iran iyadoo arrintan xoogga lagu saari doono ama laga hadli doono arrinta isballaarinta Iran oo loo arko khatarta koobaad ee Turkidu ama guud khatarta koobaad oo ay wadamada islaamka iyo kuwa bariga dhaxaba ay wajahayaan Turkiga iyo Israa'iil xiriirkooda ma wanaagsana oo uu sii xumaaday xitaa dhowr jeer Turkida gudaheeda waxaa ka dhacay howlgallo
lagu soo qabqabtay basaasiin Israa'iil u joogay gudaha waddanka Turkiga tani oo ka dhigan in Israa'iiliyiinta iyo sidoo kale Turkida ay si weyn isku ereynayaan sidoo kale Israa'iil markasta Turkiga waxay u aragtaa waddan awood badan hub ahaan iyo sidoo kale tira ahaanba dadkiisu ay badan yihiin sidoo kalena ah boqortooyadii Cismaaniyiinta ee soo jireenkeeda xadaariyadna ah waxaana in Israa'iil hadda cadowgeeda koowaad marka laga tago wadamada Carabta ay u aragtaa Turkiga iyadoo oo xitaa Turkiga hadda u muuqdo in gebi ahaan buu hoos u dhigay xiriirkii ula lahaa Israa'iil gudaha midaas ayaan kusoo gabagabaynayaa wararkii ugu dambeeyay gudaha Soomaalida iyo caalamka ilaa dhamaadka haddii aad soo gaartay waxaan ku xusuusinayaa inaad channelka subscribe inoo saarto qaybna aad ka noqoto saaxiibada ku xiran waxaan ku soconnaa waddadii aan ku gaari lahayn 30,000 oo subscribe kaliya safarkeen adiga ayaa ka dhiman sulga sar oo subscribe inoo saar channelka mahadsanidin